waayahay inta markaynu ka baxno waxa muhiim ah qofkan muslimkii waxyaaluhu isku difaacaya maxaa kamid ah waxa kamid ah inuu qofka muslimkii ilaashado weysadiisa qofka muslimkii inuu ilaashado mar walba weysadiisa waa qadiyad aad iyo aad muhiim u ah culimada islaamkuna waxay oran jireen alwudu silahul mu'min alwudu silahul mu'min weysadu waa hubka mu'minka mar walba dagaal buu ku jiraa inna shaytaana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa jaanis buu kula eeganaya marka wuxuu ilaahay kaaga difaacaya waa weysada intaan baabkan ku jiray wax badan baa iga soo maray tay ugu muhiimsaneed waxa kamid ahayd maalmaha kamida anigoo qof quraan ku aqriyaya ayaa qofkii dhacay waxba igala dhaxday qofkii markaa wixii carabkiisu ku hadlaya waa jin camiil ah oo sixir isticmaalayay quraankii baan ku waday waa sheeko dheer aad u dheer bay ahayd wuxuu ii socday wada hadalka 8 maalmood baan jinka wada hadlayn on salaadu nuga kacayay iyo inta jiifka wada hadalku noo socday adu aakhirkii markii dambe jinkii wuu islaamay sidoo nagu yiri markuu islaamay ayaa wuxuu noo tilmaamayay meelihii sixirku yaalay iyo waxinkaas deedna waqti casar intaan tukaday baan suuliga galay waan soo noqday quraankii baan ku bilaabay markaasuu yiri waryaah markaasaan ku yiri haa markaasuu yiri orod soo weysayso markaasaan ku yiri ka soco waan weysa qabaa markaasuu wallaan adu weysa qabine orod soo weysayso markaasaan waan xasuustay inaan weysa qabin waan kacay waan soo weysiistay waan soo noqday waxaan ku yiri maxaad ku garatay inaan weysa qabin wuxuu igu yiri wallaahi haddii aan sideedii hore ahaan lahaa عنيدك هذا أنا هلا عن مسلمين وأنكو داوعي كاري لها سببتها دفاعك تلعسنا دفاعك أيها تلعسنا مركا وحوان كو جيسان كاري لها قصة الله هذا يجا صامرت ويبدأيه قصوين كويسدو قصة الله هذا يجا صامرتي وحي أهيد نون بالله كان أهل الصلاة نمن بيس هيين وحوي هو كاكبين مدة مركا للدبتشو جنكا لأن ميلمية ayuu ka caraabay tuula reerko miyiga abu aaday salaadii maqrib markuu tukaday ayuu meel kaadi u fadhiistay markii uu kaajay buu sara kacay dabadeedna markuu kaadid iska biyay ayuu dhulka ku dhacay ninkii oo kooma ku jira ayaa la keenay yiro way ahayd marka quraankii baan ku aqriyay balaaya ka daldalanta war ninkan sideed ku hesheen ninkan muddaan daba taagnayn jaanisna aan kala ahayn maalintaas habeenkaasaan weyse qablaan ku helay bartaasay markaa wax kaga dhufteen ninkii ilaahay waa ka kiciyay waan weydiiyay waxaan ku yiri sida lagu helay sidii ay ii sheegeen oo waqtiga bacda al-maghribka intu kaadi u fadhiistay bilaawaso ayaan helay bay yiraahdeen xaaladaas markaasna lagu helay dad badan oo noocaas qisada iigu yaabka badnayd waxay ahayd qoftii sameeynaysa baa ka waramaysa gabadh baa waxay rabtaa inay ninkeeda isjeclaysiiso dabadeedna islaam bay la xidhiidhaa marba waxbay ka soo qabsataa ay leedahay ninkan isku jeclaysiinaya adu tiraba 3 jeer bay ku noqotay islaantii midba midku ka cuslaabay u soo qabataa ninkii waa lagu kari waayay wixii way qaban waayeen markii afraad ay u tagtay naagtii baa ka sheekeynaysa ay tinaar bal ninkaagan iiga waran dhaqankiisa siduu ku yahay cibaadada marka waxay tii horta salaada ninkan kama tagto tahaarana habeenkii hadii uu aanu kulanno habeenkii xataa maydhi la'aan ma seexdo ilaa uu horta ka maydho mooyaane ma seexdo hadduu baxayana weyse qabla'aan kuma baxo marka waxay tiri kun haddaad u tagto waxa wax qaro ah ma qabadsiin karayana ha ku daalin iska daabayt ninkaas hadduu tahaaradiisa ilaashanayo
cid kastood u geyso waxa u soo qabtaan ma qabanayso marka sixiroolayaasha inooga aqoon badan dadkeena ahlu tawxiidka manfaacada weysadu leedahay alwudu silaaxul mu'min marka qofka muslimkiihi inuu aad isugu ilaaliyo weysada waa shay muhiima jiddan weysada in la isku ilaaliyo waa qodob aad u muhiima qodobka labaad ee qofka muslimkii isku ilaaliya waxa weeyaan الصدقة qofka mu'minkii hadduu mutasaddiq yahu sadaqadaysto wax allaaliyo wax aafaa sixir iyo jin iyo il midna ma karaa